بسم الله. مدعي وحل رتا حسن محمد عوالة. نوحنها أقاسمه هوتيل كان حياة. سنوات كاركترتان بعد ما ظهروا مقشن لما ميديا كوارتنا ما أدقوا جوجو هذا نزوح بدن دوبتين. هوتيل كان وحا سوقاري قصارات وبدن وحدوكتين وحا صوري كواد على الشباب. انت والله ودر ciidamada dawladda ilaahay waa naga badbaadiyay alxamdulillah hadda waa noolnahay inta dhimatana la naxariisto dad badan ayaa ku dhintay qasaaro badanna oo hantiyadeedna uu gaaray hotelka adiga xilligii qarax uu dhacayay xagee ku sugnay anaga xilligii qarax uu dhacayay halkan hadda wareysku si dhiba ka koran saaraa markii qaraxa ku dhacay waxaan imaday qaybta hoose oo reception ka imaaday halka markaan imaado dadkina ay banaanka ka soo carareen banaankiiba xabadii ridda ka socoto meel markaas aanu u arkin in aan ku carari karno ay haboonta inaan ka baxno ku cararnay ilaahayna nagu badbaadiyay oo darbiyan ka sii boodno dareenka xilligaasi ka warna dareemaysa wallahi horta waa dareemi kartaa dad wax ku dhacaan hadda dad badan baa markii arkaan su'aal weydiiyay xasaas wiilwiisan xagga xaw gilwiisa saasada wiilwiis laakiin marka aan fiirsho ma xaaladaas saacadaas aan carareen xilliga si waxayeen iyo dadku si hayeen waa kala duwan yihiin sababtoo gelaysa hadda qofku markuu ku yimaado uu ku yiraahdo saasna yeeshay inta ortay in meeshaas ka sii baxday saacadaas marka aad joogtana waa dareemi kartaa qof wax ku dhaceen inta hadda lagu sheego qofka ka soo dhaco ma jiro inta howlgalku ka dhamaanayay ma gudaha hotelkaad ku sugnayd mase dadkii ka badbaaday oo ka baxad qaybta ka ayd niyow aniga markii ugu horeysay dadkii hotelka banaanka dibadda uga baxo cararka darbiyada ka boodanaha waxa ka dambaysa waxaan ku sugnaa albaabada hore iyo homaanaha garaashka soo jeeda hotelka ayaan hotelkan joogay halkaasaan xaaladda kala socday oo aan xaaladda ka socdaan ka fiirinaynay sida ay wax u socdaan laba toddobaad ka hor halkan aad baa loogu ganacsanayay hotelka waa qurux badnaa bal ka waran maanta xaaladda uu yahay dadka ku daawanaya u sawir weli laba toddobaad ka hor waxay ahayd markii masiibada meeshaan ka dhacday oo waxa ummadda Soomaaliyeed qalbiyada galgal meeshaan ka dhaceen ilaa hadda weli uun howlaha socda waxa waaye weli meeshii uu taala wax shaqo kama bilaabin laakiin waxaan rajaynaynaa inaan dib u dayactirno oo aan dib u howlgelino oo aan dib wax u shaqo qabanno rajaynayna insha Allah taala hantida marka aan fiirino halkan ku baabaaday intee la egtahay wallahi hantida meeshaan ku baabaaday waa hanti aad u baaxad weyn dareemi kartaan sidii aad ka dhageysteen wareysiga uu bixiyay milkiilaha hotelka ee FIO-da ilaa $2 milyan oo dollar ku dhawaad ayaa meeshaan qasaar ah ku qasaartay ku burburtay ولينا ودريم كرتا قرش كنت أبدا إنه سن لبطة بعدها در هالمر مش هرلك عشان أساس علنين رجال هوتيل كا مركات صورته ما مدة يعتروا بهان مس إن بلو يكو هذا الاسم اللي قصوا بالله والله ورت الهوتيل كا سيادكم على كيسان أو دين معلق يهين واحد جرى قصار واحد من السوقاري مركا أنا إنجنير ميه waxaa jira injineer badan oo assessment sameynayaan oo dhamaantood yimideen cabbiraad qaaday oo assessment sameynayaan oo wada fiiriyaan ayaguna wali ribad nagu meesha soo celin marka ugu dambeyn rajada aad ka leeyihiin mar kale in howlihiina dib aad u bilowdaan rajo aad u wanaagsan aan ka leenahay inaan uun maalmaha kamid ah dadku yarkaan hotel xayaada oo sidiisa ku soo noqday oo lagu sheexayo ama lagu caawinayo markaad fiiriso weerarada magaalada ka dhaco kale hoteelada inta badan markay xaalado noocan oo ka dhacaan oo kale burbur intaan la ego ayarta inay soo gaaraan marka maxay tahay sababtaad isleedahay wallahi horta waa dareemi kartaa hotelkan burbur aad u baaxad weyn soo gaaray oo aad dareemi karto ciidamada dawladda waxay gurigan ku garaacayeen qoryo aad u hub aad culus ah gurigan lagu garaacay oo ay sababay in gurigano oo qasaare baaxad weyn soo gaaro burbur weyn soo gaaro oo aad u dumo marka adaano ma aqaano
sababta ay ciidamadu saas u yeeleen haddii ma inay ka baaqsan waayeen ay xal u arkayeen ahayd mise ayagay uun xirfad yaraantooda u geysteen maqaane gurigan waxaa ujeedaan waxaa aad u dumiyey